amni la saxiixatay dalka difaac la saxiixatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Ethiopia, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo fara badan. marka ma aqaan sababta loo tilmaameysanayo xiriirka Masar aan la sameeynin. Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah oo ka dhaxeeyo xiriir hore oo noocaas ah waa lahaan jirnay. marka ma aqaan sababta si gaar ah loogu calaameysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar. waa dal walaalanahay taariikh ahaan xitaa xorriyadii ka hor qayb ka ahaa mataqaanaa xornimadii Soomaaliya. laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeynayso wadanka uu soo gala iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ay la leedahay. haddana markab hubaha soo degay diyaarad hubaha keeneen kaalmo military ah. waa nasiib darro horta in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaanaa ay ku xirnaato. Soomaaliya ayada u madax bannaan cid ay la heshiinayso sida Ethiopia ay u madax bannaan tahay cid ay la heshiinayso. marka anagu maamulka hadda jooga madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu u arkaa in ay madax bannaanida Soomaaliya qayb ka tahay in dal alla dalka doonto in xiriir la yeelato. marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Ethiopia inaan Masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan wax isku xiran maaha. waa laba arrin oo kala madax bannaan. muddo dheer Ethiopia waxay xiriirar kala duwan la leedahay oo wajiyo badan leh maamulada dalka ka jira gaar ahaan kuwa xuduudaha ku dhow kale. haddii ay u aragto in Ethiopia halis ay soo wajahayso iyadana soo ma imaanayso in goboladaas iyo maamuladaasi ay xiriir la yeelato sida haddaba la arkayo maamulka Koonfur Galbeed oo kale inuu leeyahay Ethiopia kama baxayso Masar ma imaanayso dawladda laftirkeeda soo halkaas culays kama soo wajahayo. siyaasadda difaaca qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda horta waxaa mas'uulka dawladda dhexe ee federaalka ah taa iyo dastuurku siinaya. maamuladuna waxay qayb ka yihiin dawladdaas dhexe dabcan ra'yigooda iyo la tashi dawladda way ku leeyihiin laakiin go'aanka u dambeeya dawladda dhexe ayaa iskale. anu ma aaminsani qof Soomaali ah oo mas'uul Soomaali ah inuu danaha Soomaaliya danaha dawladda uu kaga hor imaanayo ama mataqaanaa uu cadow dalka uu leeyahay uu la safanayo. marka waxaan isleeyahay waxyaabaha yarka miidiyaha dhex yaala laakiin waxaan aaminsanahay maamulada ay sheegtay gobolada xuduudaha jooga waxaan aaminsanahay inay yihiin dad Soomaaliya wadaniyiin ah raba in Soomaaliya ay madax bannaanaato. aakhirkan waxa ay la shaqayn doonaan dawladda dhexe waxa ay rabto ayay ka shaqayn doonaan. waxaa soo baxaya warar sheegaya in Ethiopia ay hub siisay welina ay siinayso maamulo kala duwan iyo kooxo kala duwan oo Soomaaliya ka jira. Masarna sidoo kale ay adig dawladdii ka caawinayso dhinacii hubkaas faraha badan loo wadanka soo galayo oo qaarkood gacantii dawladda aanu ku jirin. halis intee la egaa u aragtaan in amniga wadanka uu ku yeelan karo? dabcan hub aan ku jirin gacmihii loogu talagalay markastaba dhibaato ayuu leeyahay. waa nasiib darro in Ethiopia ay hub noocaas oo kala fara badan dalkeena ay soo gelisay xilliga hadda aan ognahay caqabadaha labada dalba haysta. waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in dariiqyada ku habboon aan uga hadli doono hadduu ilaa yiraahdo laakiin dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dawladda Soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay. waxaan ku dadaali doonaa saan uga hortegi lahayn. golaha wasiirada ayaan dhibada sharci buu ka soo saaray oo ah inaanan hub laga ganacsan karin in hub aanan dawladda dhexe federaalka aanay raalli ka ahayn aan meelaha qaarkood lagu maamuli karin. marka waxaan rajaynaynaa in dadka maamulada Soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharcigaas hadduu ilaahay yiraahdo. hore waxaa usoo saarteen amar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee ku yaala Puntland iyo Somaliland. go'aamadaas waxaa la leeyahay ma aanay hirgelin. waa run dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhu waxa ay ku furan yihiin xeerar caalami ah oo la yiraahdo Vienna Convention oo 1963 la saxiixay annagana aan qayb ka nahay. dabcan furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayay dawladda Soomaaliya ayaa ogolaatay. xukuumaddii tan ka horeysay xilligii uu wasiirku ahaa wasiir Cawad madaxweynuhu ahaa Farmaajo ayaa lagu ogolaaday inay furmaan qunsuliyadaas. dabcan dawladda Soomaaliya markay dalbatay in la xirina waa in la xiraa. dabcan in la xiro waa dalbanay nasiib darro lama xirin. waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na dhex yaala ka mid tahay dalka Ethiopia oon ka wada hadlayno. marka waa sharci darro ayay ku furan yihiin. waxaan rajaynaynaa in kule mar un ay sharciga la waafajin doono hadduu ilaahay yiraahdo. dhawaan waxaad tegayseen Turkiga adigoo wada hadallo la leh Ethiopia.
turkiguna wuxuu sheegay inuu weli isku dayayo oo dadaalkaasi uu wado xaggee dadaalkaasi maraya mase rajaynaysaan inaad mar kale hor fadhiisataan dabcan horta arinta maanta dhex taala Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba arin oo u baahan in la kala qaado waa arin horta xadgudub haybadii iyo sovereignty Soomaaliya iyo trustiga labada dal dhex yaale marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo kan labaad waa damaca waa dalabka ama baahida Ethiopia ay u qabtay inay hesho bad ay isticmaasho adduunyadu wadamada landlocked-ka shuruuc ay maraan baa jira oo la yiraahdo UNCLOS oo xeer caalami ah marka anigu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay dalka Soomaaliyana in dekada badda Afrika ugu dheer buu leeyahay marka in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iideysto oo ay dekada badan laga sameeyo Ethiopia ay isticmaasho danaha Soomaalida ay ku jirtaa marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah shirarka hadda socdana waxay ku saleysan yihiin sida tan hore loogu gudbi lahaa marka hore kadib tan kale waa la sugu imaan doonaa xaggee ku habboon iyo dhaqaalaha bixinaya iyo farsamo ahaan iyo goormaa la bilaabaa iyo waxaas waa waxyaabo oo farsamo oo laga heshiin karo laakiin tallaabada hore ah inaanay Ethiopia xadgudubka ay sameysay ay ka noqoto kadibna trustiga loo baahnaa xiriirka la caadiyeeyo waxaas oo waa tallaabooyinka hadda aan ka wada hadlayno waana laba goor ayaa hore looga hadlay haddana wada hadallo indirect ayaa socda oo hadda maalin dhawada New York way ku wada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga si gooni ayuu ula kulmay labada wasiir dibadeed Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan rajaynayaa xilliga soo socda in marka shirka la isugu soo noqdo Ilaahay yiraahdo dad badan waxay leeyihiin Turkiga Soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay Ethiopiana xiriir ganacsi uu la leeyahay waxyaabaha hadda soo jeedinta kamidana ku jiraan waxaa kamida in dekad la siiyo Turkigana uu dhiso marka ma dekada hormaraysa mise waxaa hormaraya arinta khilaafka keenay xalka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bishii December 31 oo ah laba dal oo is aqoonsan is aaminsan saaxiibo ah trust ka dhex taalo xiriirkooda caadi yahay marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arinta dekada arinta kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay Turkiga waxa uu sheegay in markab saliid baar uu Soomaaliya u diray oo ay bilaabanayso maxay tahay markabkaasi xaguu tagaya goormuuse bilaabaya hawshaas muddo sanad ku dhawaad ayaan dalka Turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida Turkiga uu Soomaaliya gacan uga siin lahaa dhismaha ciidan bad Soomaaliya waxay leedahay badda Afrika ugu dheer baddaas inteeda badan waxaa ka faa'iideysta dad qowleysataa oo tuuga oo waxaa loo yaqaan illegal fishing loo yaqaano marka si dib loogu dhiso ciidankii badda Soomaaliya iyo waxaan Turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo 10 sano gacan naga siiyo kadibna waxaa la sameeyay wada hadallo oo iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca difaaca oo heshiiskii golaha baarlamaanka ay ansixiyeen Soomaaliya golahooduna ay ansixiyeen marka Turkiga waxay soo diri doonaan maalin dhaweyn Turkiga heshiis ayaa waxaa la galay wasaaradda batroolka oo dhowr block 3 block inta umaleynaya ayaa lagu la heshiiyey oo aan filay inay tahay zoonahan galmudug inta umaleynaya marka kaas wuxuu u imaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaano 3D ama 3 geesoodka xukuumaddii hore ee Xasan Sheekh 2015 iyo waxay dalku badda dhan ku sameysay waxa loo yaqaano 2D seismic analysis from Hobyo ilaa Kismaayo marka bloogyo badan ayaa la calaameeyay waxyaabo potential ayaa